xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa aqbalay in xisbigaasi ay iska sharaxaan laba musharax oo ay u soo gudbiyeen mid ka mid ah beelaha dega magaalada Hargeysa waxaana munaasabad loo qabtay labadaasi musharax ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo uu horkacayo gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro odayaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada ardayga labadani musharax waxaana ugu horeynba hadalka iska daba qaatay odayaasha haweenka iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadani xisbigu ku aqbalay inay iska sharaxaan musharaxiintaasi gudoomiye laga gudoon labada musharax waa laba nin oo waxtarkoodu muuqday waa laba nin oo la tijaabinayn horaan u soo tijaabinay waxbarasho badan baa ka socota deegaanada reerka iyo deegaano badan qayb weyn bay ku leeyihiin wax badan bay ka qabteen dambayn waxaanu helnay laba wasladood oo dheemana waxaanu leenahay xusbiga wadani dheema tabiyaa la baadha sideeda ku qaata gudoomiyaha xusbiga iyo inta la socotay iyo xusbigaba waxaan leeyahay xaaja waa human iyo hubaal labada ninaynu kuu keenna musharaxiintii gudoomiye waa hubaal maaha koobiya waa originaal halkan xafladan ay isugu timaadeen waxaa looga yeelay laba nin oo la shaaciyey labaduba waa laba nin oo amran oo diinta saami ku leh waxaan leeyahay wargolayaasheenna aan ku hagaajino golaa wadatashigu wax allaaliyo wuxuu nigeria waxaan leeyahay waa nin cabdiraxmaan waa kaga sabraysan kursiga waa nin mudakara inankaas siciidna waa nin magaranaysaa isna aad baa warkiisa laysiiyey waa nin caqiibo leh oo wadaada oo akhlaaq leh oo diin leh watacaala waxaynu weydiisanaynaa camalkan aynu isugu nimi ee ah camalka ijtimaaciga inaynu waddankeena wax u qabanno inuu ilaahay inooga yeelo camal mubaaraka ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa xaqa inuu ina waafajiyo musharaxiinta waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay uu noqdo kuwa ugu fiican ee wanaagsan ee dalka iyo dadka iyo diinta intaba anfaca ilaahay isu keenay ee inoo suuro geliyey inaan isu nimaadno qoorweyntii haweenkii mutacalimiintii cuqaashii salaadiintii madaxdii xisbiga ilaahay saanu mahadnaqaynaa horta isu keenay inoo suuro geliyey inaynu xafladda qiimaha iyo qaadaha badan isugu nimaadno waxaan oo xafladaya waxaan oo farxada codka uunbay isugu beeshumayaan sidaynu u doonno sidaynu ugu sabirno sidaynu u ilaashanno iyo sidaynu ugu ridno intaasay isugu imanayaan qaasimku waa quruxda iyo qiimaha xisbiga wadani xisbiyada qaybkii dheeryahay labadaa murashax ee caawa wadaan waa laba murashax oo qiimo badan yaasiin iyo saciid labadooduba waxaa muhiima inaynu fahanaa hawsha aynu u dirayno ammaan uga baahinin waa laga waday laakiin maanta waxaa laydinka doonayaa sidee hormay kugu soo saarteen taariikhda ugu haydeen inaad soo saartaanoo daalad maaanu ku faano annagu naga xumaan maanta nasiibada wasiirku waxaanan hayno doorashooyin badamiyeynu soo jeedeen laakiin cod baan iyo gacana wax kula qabto taasaan ballan qaadaya beeshii dooratay imika way hor fadhidaa xildhibaankana imika waxaan idinka codsanayaa saa u doorataan inaa imika waxaa socda kaarbedelkii iyo goorbedelashadii in kaararkiina aa urursataan oo xildhibaanka ah oo aan leeyahay inuu booskaygii buuxin karo waana nin u qalma geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay labada musharax oo kala ah yaasiin cumar yaro oo u sharaxan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo Siciid Sokeeye oo u sharaxan golaha wakiilada halkaan u sharaxanahay sida qad sheegayo waa magaalo ay ku nool yihiin 1,500,000 ilaa 2 milyan qofkii jooga ee gaajoonaya iyo kii curyaankaaba mas-uuliyaddeeda qof u soo diyaargaroobay ayaan ahay
midna waan idin sheegayaa walle iyo bille inaanan usoo shaqo tegin inaan u shaqeeyo mooyaane waxaan insha allah haddii ilaahay ugu gooleeyo goobtaas insha allah mushaarkayga waxaan siin doonaa cidda ugu baahida badan ee Hargeysa degan anuu kala artirinayn dowladnimadu oo wax aad iyo aad u qaaliya baarlamaankuna dowladnimada waxa uu u yahay lafdhabar sababtoo ah dowladda lafdhabarkeedu waa qaanuun iyo kala dambayn iyo xeer meesha uu ka soo burqadaana waa baarlamaanka hadduu baarlamaanku yahay mu'miniin sida nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam almu'minu kayisun fadil mu'minku waa nin raga oo fariid ah oo aqoon leh haddii aynu dooranno noocaas oo kale waxa aynu helaynaa baarlamaan ku dhisan baqashada ilaahay ku dhisan kitaab allahi wa sunnata rasuulih oo fuliya qaynuunka sharciga ah ee uu leeyahay baarlamaankeenu ee ah wax allaala iyo wixii shariicada islaamka ka hor imanayaaba waa qalab gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan u sheegayaa salaadiinta iyo uqaasha in anigoo ku hadlaya magaca xisbiga aan idinka gudoonay labada musharax ee qiimaha badan Axmed Maxamuud Dool MMTV Hargeysa.